sharikadda Somgas waxaa maanta ay taariikhdu tahay 6dii bishii afraad 2024 ay xadhiga ka jartay kaydkii ugu weynaa ee geeska Afrika ee gaaska cuntada lagu kariyo ee loo yaqaano LPG gas waxaana shirkadda Somgas isla maanta ku soo xidhay marsada dekedda Berbera markabkii ugu weynaa ee gaaska cuntada lagu kariyo sida kaasi oo sida 6500 oo mitir tan oo gaasta cuntada lagu kariyo ah waxaana xaflad ballaaran oo lagu sameeyay terminaalka ama xarunta shirkadda Somgas ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan sida duqa degmada Berbera barasaabka gobolka Saaxil wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga madaxda sare ee shirkadda Telesom Group boardka shirkadda Telesom Group iyo madaxda shirkadda Somgas iyo injineerada shirkadaasi iyo waliba mas'uuliyiin marti sharaf badan oo kale waxaana madashaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Somgas iyo Telesom Group oo sheegay inay gaasta badbaado u tahay deegaanka kana hortagayso abaaraha soo noqnoqday ee roob la'aantu sababta u tahay halkan maanta waxaynu fadhinaa kaaba dhaqaale oo dhaqaale aad u badan la geliyay oo aad loo hormariyay lacag badan la geliyay kuna yaala gobolka Saaxil kuna yaala dekedda meesh magaalada ugu qiimaha weyn ee ugu magaca weyn ee magaca soo jireenka muddada aan lahayd halkaas oo maanta aynu ku soo xidhnay kaabahan dhaqaaleenu sameeynay Somgas storage ama LPG storage ka markab aad iyo aad u baaxad weyn oo sida runtu tahay ka tari doona dhaqaalaha waddankeena aad wax uga tari doona ayaa la ku soo dhawaada xafladda aynu daafurayno xaflad badan oo xaflad kale weyn oo qaban doona aynu ku daafurayno dhamaystirka mashruuca iyo dhamaantiiba oo mashruuc kale mashaariic badan ballarna ay ku xidhan yihiin halkan qofka inoogu faraxtida badan sida gaarka maanta aan xusaya waxa weeye wasiirka deegaanka shukri Ismaaciil Baandare oo sida runtu tahay tallaabo ula socotay inuu mashruucan deegaanka wax ka taraya isagoo ganacsi haddana sadaqa ah badbaadinaya dhirteeni badbaadinaya nolosheeni badbaadinaya muxuu ahaayay dalkeeni waxtarka weyn oo mashaariic weyn oo inay saacad ula socotay sidaas cid ka sheekeeyay taariikho hore ayuu soo maray shirkadda Somgas xilligii la bilaabay oo la garanaya 2006 ayaa shirkadda Somgas la sameeyay ilaa muddada ku dhow 18 sanadood way shaqeynaysaa shirkaddu marba heer bay soo martay waxay mar joogtay in ay haan ama laba haamood ay wax ku shubanayso waxay soo martay in haamaha xeebta xiga ee dambe ee 22 ah 2009kii shirkaddu ay lacag fara badan geliso oo si loo hormariyo efficiency-gii iyo helitaankii gaasta tiina markii inta lagu soo mooday 3 sano 4 sano ka hor ayaa haddana shirkaddu waxay go'aansatay inay terminaal weyn oo waxtar ah oo waddankeena iyo wadamada deriska wax u tari kara ayaan meesha ka sameeyno intii naga caawisay maamulka Berbera iyo barasaabadii xilliga joogay iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda intaba waan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa maalgashiga halkan galay inuu yahay maalgashi xoog badan lacag fara badan gashay ujeedaduna ayaan ahayn faa'iido doon qura aan ahayn ee ay tahay in dalka wax laga qabto oo dalka la maalgeliyo oo aynu dalkeena aynu dhisno oo aynu wax ka qabanno arrintan gaasta aynu maanta furayno xaflad weyn baynu u qaban doonaa labada terminaal marka terminaalkan batroolka uu dhamaado baynu xaflad weyn u qaban doonaa hadii lahaydno maanta waxay ahayd oo kaliya inaynu madaxda dawladda iyo dadka ganacsatada ba ogeysiino in markabkii ugu weynaa ee gaasida abid maanta kii ugu weynaa oo maanta inoo xidhan yahay oo dekedda Berbera inoogu xidhan yahay dekedda iyo magaaladana sharaf bay u tahay waddankana sharaf bay u tahay anaga mashruuca haddaan in yar idiin soo taabto bilowgiisii mashruucan 2021kii ayaa ay shirkaddu saxeexday shirkad Optech Engineering la yiraahdo oo terminaalada ka dhistay dunida intooda badan ayaa heshiiska aan la galay wajiyo badan buu soo maray oo ay ka mid tahay wax la yiraahdo conceptual designing oo ah horta marka hore in fikirka guud la engineeriyo ilaa iyo
topographical studies iyo ilaa permitskii dawladda iyo muxuu ahaayey aakhirkiina designingkii iyo approvalkiisii iyo in markii dambe procurementkii alaabada la soo raro oo ilaa hadda socda iyo in aakhirkii dhismihii la bilaabo intaasoo dhan waxaa ka sii muhiimsanayd in lagu ilaaliyo oo uu terminaalku noqdo standard caalami ah oo la yidhaahdo American Petroleum Standards waxaa jira standardro badan oo lagu dhiso terminaalada laba ugu weyn mid waxa la yidhaahdo South African Standard laakiin kan aan terminaalkan ku dhisnay waxa la yidhaahdaa American Petroleum Standard baa la yidhaahdaa marka standardka laga hadlayna waxa laga hadlayaa quality-ga materialka la isticmaalay qaabka loo design gareeyay engineering wise systems sidoo uu shaqeynayo fire fighting-ka iyo safety-ga sidoo noqonayo waxyaalahaas oo dhan ba ayaa la eegaa waxaanay kamid ahayd waxyaalaha mashruuca xataa dheereeyay waqtigiisa in standardska la ilaaliyo oo mararka qaarkood ay contractors xataa qasaare ku galaan sababtoo wax aad u yar ay mararka qaarkood laga yaabaa inay qalad ay sameeyaan oo design-kii ka leexdaan dabadeetana la yiraahdo ku noqdo wax oo dhan marka alxamdulillah xaaladdan aan joognaa terminaalkan arkaysaana gaaska 6500 oo metric ton buu qaadayaa waxa Somaliland lagu isticmaalo waxa laga yaabaa inuu 4 times ka badan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa in ay soo dhamaato xaalufintii deegaanka iyo muxuu ahaayay mushkiladii deegaanka lagu hayay oo dadku ay u soo guuraan in ay wax environment-kana u fiican oo nadiif ah ay isticmaalaan sidaas la midana waxaan rajaynaynaa in uu terminaalku uu xataa dariskeena u adeego oo mesela meelaha gobolada qaarkood ama Ethiopia uu adeegi karo insha Allah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Case ayaa iyaguna soo dhaweeyay mashruucan gaasta ah ee dhuxulaysiga lagula dagaalamayo deegaankana badbaadinaya Somgas ama terminaalkan waqtigeeda inuu dhigan doona insha Allah laakiin maanta ayaa mar kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sakhiray in ballaarin lagu sameeyo marka koowaad waxaan baarigaynaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa oo Ilaahay ka baryaynaa inoo barakeeyo inaynu markabkii ugu weynaa maanta la soo xirayo oo aynu weelkiisina hayno Soomaalida ku maamaado waxay tiraahdaa markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ku siinayo horta dadkeedu ku siiyaa marka waxaan leeyahay dadkeedii baa Ilaahayna siiyay dalkuna horumar buu u socdaa oo dalku waxa weeyaan horumarka waxa uu wadaa dadka Ilaahay waxa lagu dhibay maanta tijaarta ah marka waxaan leeyahay bulshadayda reer Soomaaliland oo dhan aynu soo dhaweyno aynu ducayno aynu garab galno gaasta oo sidaa la tilmaamay wasiirka wasaaradda deegaanka runtii ay in badan sidii geedaha loo badbaadin lahaa oo gaasta loo isticmaali lahaa in badan runtii ay dadaal gelisay waxay runtii qayb ka tahay inuu deegaankeenu noqdo deegaan badbaada inuu deegaankeenu noqdo deegaan barwaaqaysan inuu deegaankeenu noqdo deegaan runtii barwaaqo ah ayay suurto gelinaysaa markabka inoo yimid iyo kuwii hore aynu isticmaali jirayba waxay wax weyn ka tari doonaan in la yareeyo geedkii la soo jarayay sidaa kambanigu inoo ballan qaadayna ay jabi doonto gaastuna haddii alla idmo waxaan leenahay aad iyo aad baan runtii idinku mahadnaqaynaa dadkana waxaan ugu baaqaynaa gaasta inay gaasta isticmaalaan oo geedka ilaaliyaan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo wasiirka maalgashiga iyo waliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkadda Somgas badbaadada deegaanka qayb weyn ka qaadatay kuna amaanan tahay mashruucan maalgashi ee maanta xariga laga jarayo waxaynu u isducaynaynaa shirkadda oo aynu leenahay maadaama aad halkaaba aad geliseen kharashka intaa leeg runtii abaalba aad ku leedihiin Somaliland sababtoo ah wax weeyaan waxa gelisaan maal aan idin garanin waqtigu soo noqon doono gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
annagu wasaaradda iyada marka ugu horeysa la keeno waraaqaha isla markaasaan cashuur dhaafka u qoraa waayo annagu ka wasaarad ahaan waxaan u eegaynaa inta geed ayaan u qiyaasaynaa ee noo badbaadaysa deegaanka noo badbaadaya ayaan u eegaynaa saacadna lama taalo 2 saacadoodna lama taalo isla markaasaa la qaadaa waxay la tagaan maaliyadda markay la tagaana kastamada loo soo gudbiyaa maalinta labaad ba dekada berbera alaabta inay kala soo baxaan waa suurtagal waxaan runtii u mahad celinayaa daani gacmahaasiis wada qabsan annaga waxba noomay suurta gashay haddaan maanta aan cashuurta laga daynina cirkun bay sii tagi lahayd 35 40 bay gaadhi lahayd maanta waxa weeyaan waa 20 waxaanu filaynaa insha Allah bismillaahi kariim inay sidii ballantu ahayd halkan ay Telesom Group ka ballan qaaday inay soo jabiyaan oo hoos u dhigaan si cid kastaaba ay runtii u iibsan karto waynu soo marnay waqti xaaladaheennu ilaahay u sahlay ma sha Allah tabarakallah ay ahayd waynu garanaynaa inteena badan waqtiga wixii la mari jiray iyo maanta quruxda uu dalkeenu leeyahay oo ay magaalada berberi ugu horeyso marka waxaan aad iyo aad marba ku dardaarmayaan leeyahay war mar walba aynu ogaano qaranku inaanu inaga leexin socdo anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda ganacsiga mar walba waxaanu diyaar u nahay ka wasaarad ahaan inaanu soo dhaweyno ciddii dalkan ku soo kordhinaysa ganacsiga iyo wixii horumara wixii aanu u sahli karno iyo wixii nagaga xidhmaba inaanu ka wasaarad ahaan ku soo dhaweynaa baan ugu ballan qaadayna mashaariicdan oo kale iyo kuwa soo socdaba waanu soo dhaweynaynaa waxaan ku amaanayaa shirkadda Telesom waa shirkad ballaaran oo meelo badan ku jirta tanna maanta markabkii ugu weynaa oo taagan yahay halkan oo ahaa kii gaasta intuu ka soo halka pipe ka soo xidho oo hamaha inoogu shubayo kadibna halkan laga qaadi doono marka waa guul weyn waa mid soo hoyatay qaranka waa mid soo hoyatay waddanka waa mid iyaduna anfaci doonta maalgashadayaasha gashaday lacagta halkan waxa weeye maalgashadu waa inuu muddo badan maalkiisa ku amaanaa dalkiisa iyo dadkiisaba shirkadda Somgas waa shirkadda kaliya ee leh kaydka baaxadiisu aad u weyn tahay markabka maanta soo xidhayna waxa uu sidaa gaas dhan 6500 oo mitir tan waxaana dadweynaha ugu baaqayna ayay yiraahdeen inay ka qabtiri doonaan gaasta cuntada lagu kariyo maxamed cabdilaahi soo fadhiis berbera